haddaba shirka kan maanta waxaan u qabtan uga hadlayaa golihii wasiirada ee laga dhisay galmudug ee madaxweyne qoorqoor oo dhisay. haddaba waxaan u hadlayaa beesha reer maxamed camal beelweynta reer maxamed camal ee degta bariga galmudug dhuusamareeb ilaa ceelbuur. haddaba meesha tan waxaan soo bandhigayaa xisaabtan iyo lala xisaabtamayo mas-uuliyiinta ay ka mid yihiin xildhibaan yuusuf geelle ugaas iyo madaxweyne qoorqoor aan ummadda soomaaliyeed u soo bandhigayno. haddaba beesha aan ka hadlayo waxaa haysta shabaab muddo dheer, waxaana sugaynay in maadaama galmudug maanta laysugu yimiday in wax ku oola laga soo saaro, hadday tahay dib u heshiisiin beelaha kaarka la dhexaysa beeshaas iyo haddii ay tahay sidii loo maarayn lahay dhibaatada ummadda halkaa degan muddo xil saareed. haddaba maxaa dhacay? waxaa dhacay in madaxweyne qoorqoor iyo mudane dhegey in ay yiraahdeen gabar ayaan waxaan ka keenaynaa Maraykanka. gabadhaas oo lagu magacaabay xuquuq lisaanka iyo haweenka. haddaba waa qof aan weligeed arag meeshaas, annaguna aanaan arag, aanaana u xil saaran codsanna 29 sano kadib. waxaa la yaab leh in diktatoriyadii lala diriray ee dowladdii kacaanka 21 ahayd in maanta la soo celiyo gobolka Maraykanka gabadha laga keenayo. tusaale ahaan haddii ay madax ka dhiganayaan dadkaas ayagaa doorta oo aqoontooda, annagu ma aanaan dooran mana codsanin, intaan la magacaabinna waan ka hadalnay. haddaba maanta galmudug maadaama laysugu yimiday ma waxaan sugaynay diktatoriyad cusub? waxaa la yidhi dimuqraadiyad ha lagu dhiso. dimuqraadiyad waxay yidhi codka iyo rabitaanka shacabka iska leh. haddaba shacabkaasi inay ka xoroobaan shabaab lama doonayo, inay ku soo dhex jiraan ayaa la doonayaa, iyadoo haddana la dhumiyey saamigii reer maxamed camal beesha duduble ay ku lahaayeen, hadday tahay degaan iyo hadday tahay dadba ilaahay u badiyey halkaa ay degan yihiin. sidaa daraaddeed waxaan leenaha magacaabidaasi mana aqoonsanayno, waana waxba kama jiraan iyo diktatoriyad cusub. waxaan rabaa inaan u sheego ra-iisul wasaare xasan muddadii dheereed iyo wakhtigii dheereed oo ku dhunshay midaynta galmudug iyo wax ka qabashadeeda in la baalmaray. horaana u sheegnay in ay jirayaan dad danaystayaala oo doonaya inay maran habaabiyaan dadaalkaas dowladda dhexe ay ku bixisay oo ra-iisul wasaare cali khayre hormoodka u ahay. waxaan arkaynaa in halkan lagu beeray dad dhallinyara oo aan u bislayn siyaasadda oo qaybo ka mid ah guryabo lagu biilo wax la taaban karana ah. sidaa darteed beesha reer maxamed camal ma doonayso dulsaar, dowladdana waan waafaqsannahay, xataa galmudugaan taageersannahay. waxaan taageersannahay dowladda dhexe, annagu mucaarad ma ahayn, horumarkaanu wax ka doonaynaa waxa la hiigsanayo oo galmudug sarisan ka midna, laakiin wax guracan oo dulsaara oo aan ummadda u qalmin ama haybadeedana u qalmin ayaan soo bandhigaynaa. waana diidnay, waana diidaynaa. sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa in arrintayada si hoose loo eego, lana doonayo dadkaas in la fidneeyo oo khilaaf laga abuuro. waxaana noo ogol annaga dastuurka ayaa noo ogol, waana akhrin doonaa galmudug iyo kan kale. ugu dambayn waxaan leeyahay wadadyahow soomaaliyeedow 29 sano dulligii lagu jiray haddii maanta rag inay ku danaystaan doonaya waa meel ka dhac. waxaan rabaa inaan dib taariikhda ugu noqdo 1965 doorashadii ka dhacday Soomaaliya beesha aanu magaceeda ku hadlayo waxay kula ahayd xildhibaan ayay kula ahayd. ilaa waqtigaasna way soo taagnay doorashooyinkii hore, ilaa dawladii ku meel gaarka ahayna sidaas ayaan ugu lahayn. haddaba waxaan rabnaa annagoo ku raalli ah xaqayaga inaan qaadano, cidna inaan xaqirna aanan doonaynin. halkaa waxa ka dhacay ma qaadan doono. beesha dadka u dhashay oo Soomaaliya ama shanta qaaroo Soomaaliya degan waxaan leeyahay inay baraarugaan. waxaan leeyahay inay tahay bahdil
la bahdilayo ummadaas cadawna in lagu sii haayo la doonayo aana kaba shakisannahay in dadkaas haysta dad gacan saar leh inay jiraan waxaan rabnaa war ummadda Soomaaliyeeday na arka dadka deegaanka deganow oo nala deganow oo dariska nala ahow oo Soomaaliyeedow oo 12 qabiil halkan ku deganow oo galmudug dhistayo waxaan maanta ka hadlaynaa nala arka waxaan leenahay xaqiraad waa diidnay xisaabtana u taagannahay qodobadana waan akhri doonaa haddii alla yiraahdo annaga gabar Amerika laga soo daroobgareeyay oo aanan arag ayaduna noqon ilaa qabiilkaas ay ka dhalatay maanta diktatoriyad cusub oo wixii 29 sano burburka Soomaaliya keenay ayaan u aragnaa waa diidnay waxaan haddaba rabaa maxaan ku diidnay maxaan noo ogol waxaan noo ogol annaga sharciga ayaan dastuurka aan ku dhaqmayno oo aan dawladda ku nahay haday tahay galmudug haday tahay waxaan u hormarinayaa dastuurka federaalka faqradda qodobka koowaad faqraddiisa labaad awoodda oo dhan waxa iska leh shacabka wuxuuna ugu isticmaalayaa si toos ah iyo isagoo u adeegsanaya hay'adihiisa oo uu xil saartay si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka waxaa reeban in qof ka mid ah bulshada sheegato gobonnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ama u adeegsadaan si u gaar ah haddaba ma doonin ma kala tashan waxaan arkaynaa in dana gaara laga leeyahay iyo bahdilka beesha lagu sameynayo ah maadaama ay lahaan jirtay kursiga koowaad maanta inta si la geeyay qofaan halkaas aqoonin horumarka la higsanayo galmudugna doonaysa in lagu baabi'iyo dad la adeegsada la keeno qodobka saddexaad faqraddiisa labaad mabaadi'da aasaasiga ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay ku dhisan yihiin mabaadi'da aasaasiga ee awood qaybsiga nidaamka federaalka awood qaybsigii daaqada laga riday qodobka afaraad shareecada ka sukow dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa sharciga dalka ugu sareeya isaga ayayna xukuumaduhu u hoggaansanayaan wuxuuna hagayaa hal abuurka iyo go'aanada siyaasadeed ee qaybaha dawladda oo dhan qodobka tobnaad faqradda saddexaad awoodda dawladda waa in aan marnaba loo isticmaalin meel uga dhicid karaamada aadanaha qodobkaas waxaan u soo qaatay maadaama ay tahay beesha reer maxamed camal beesha ugu ballaaran dawladda halka degta deegaankeenu oo yahay kan ugu badan dadka dariska ah oo marqaati kacayaan inta si la geeyo in gabar Amerika laga soo qaado iyo wax la mid ah wax la yaab la waaye qodobka 18aad faqraddiisa koowaad qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in uu yeesho soo bandhigo ra'yigiisa uu doono qodobka 33aad u fiirsada go'aano maamul oo cadaalad ah qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in go'aamada ka soo fula maamulada ay ahaadaan kuwa ku dhisan sharci maangal ah go'aanka gaaristana loo maray hanaan cadaalad ah hanaan cadaalad looma marin taladii dimuqraadiyadda loogu talagalay iskaashigii midnaba halka lama dhixin qodobka 46aad awoodda shacabka faqradda koowaad awoodda isxukunka waxay ka bilaabataa kuna dhammaataa shacbiga asaga ayaa adeegsanaya awoodda ah in mar kasta loo baahdo uu hay'adaha iyo wakiilada shacabka ku oogi karo la xisaabtan waxaan kula xisaabtamaynaa Yuusuf Geelle ugaas oo sanatarka Duduble ah inuu ka raali noqday in la keeno qof aan halka aan deegaankan aqoonin oo shanta qaaradood mid kamida laga soo qaado inuu raali ku noqday madaxweyne qoorqoorna sidaas uu ku magacaabay waxaan leenahay nooma aanan magacaabina adinka magacaawdeen qodobka 50aad mabaadi'da federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya heer kasta
oo xukuumaddooda waa in ay qodobka kontonaad mabaadi'da federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya heer kasta wuxuu ku dhammaadaa waa in ay haystaan kalsoonida iyo taageeridda dadweynaha. kalsoonina kuma qabno mana taageerayno xukuumadda oo dhisay madaxweyne Qoorqoor. isla qodobkaas si uu u jiro dareenka midnimo qaran deegaan kasta oo ka mid ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa in ay helaan adeegyo iyo waxqabad xukuumadeed oo isku mid ah, in loo magacaabo raggii dowladda dhexe federaalka xildhibaanadooda ka mid ahay muhiimadna la siiyo Galmudug. haddii ay sidaas tahay maxaa reer Maxamed Camal loogu soo dooray gabar laga keena shanta qaaradood magaciisa? dhinaca dastuurka Galmudug qodobka koowaad faqradiisa afaraad dowlad goboleedka Galmudug waxay ku dhisan tahay rabitaanka shacbiga gobolada Mudug iyo Galguduud. haddaan nahay shacabka degan Galmudug kalsoonidii xukuumaddaas waxba kama jiraan, waana kala noqonnay, waana kooldhac. qodobkaasaan noo ogolaanaya. isla qodobka xubintiisa B awoodda maamul ee dowlad goboleedka Galmudug waxaa leh dadweynaha gobolada Galguduud iyo Mudug, waxayna u wakiilanayaan wakiiladooda. haddaba uma aanaan wakiilan in bahdil iyo qiimo dhacna la ku sameeyo mudnaanteennina inta meel kale loo wareejiyo sidii nalaka doona laka yeelo. qodobka kontonaad ee dastuur Galmudug awoodda waajibaadka madaxweynaha faqradiisa sagaalaad waxa uu madaxweynuhu xil saaran yahay ilaalinta dastuurka iyo shuruucda heer dowlad goboleed iyo heer jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. haddaba walaalayaal intana maqlaysa ama arkaysay waxaan arkaynaa hankii aan u qabnay Galmudug ururintooda iyo isu keenidoodii dowladda dhaxana ay ku bixisay muddo dheer iyo waqti dheer in lagu danaystay qaybihoodii hore oo xildhibaanada ahay loona soo dhigtay kuwii kale oo maamulka adeegsanayay in privilege la sameeyo beelaha qaar ee ka mid ah halkaas kuwana la yiraahdo maxay yihiin oo dad aan munaasab u ahayn, meel aan munaasab u ahayn, cid aan ka shaqayn karinin, cid aan dib u heshiisiin geli karin, cid aan xisaabtan geli karin, cid aan aqoonin deegaanka laga keeno meelo kale laga keeno ee beelweynta reer Maxamed Camal la kor dhigo. waxaan leeyahay dagaalkii ka bilowday Ceelbuur 1990 bishii Juulaay 3 dadka dowladda ku kacay barigaas ee calankii Ceelbuur ka dajiyay beesha aan ka hadlayay hormood u ahaayeen ragga hormoodka meesha u ahaa. haddaba annagu dooni mayno kuna cagajuglayn mayno wax shala la soo maray. waxaan codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in la arko arrintaas iyada ah in ay tahay meel ka dhac danaysina annagu ma doonayno. dowladdan taageersanahay ayadaana la shaqaysanaynaa, ayadaan la xisaabtanaynaa, wakiiladana la xisaabtamaynaa. waa noo dhiman tahay wixii aan ka yeeli doono. senator Yuusuf Geeladhige waa ka tashay ku jirtaa, laakiin waxaan leenahay Galmudug qaybtayadii baan ka doonaynaa, ayadaanu u fadhinaa. gabar nin soo doortay wuxuu ku keenay ma naqaana madax noomana ahan annaga wasiir kamana aanan dhiganin namana qabato. waxaan leenahay hal la arko waxaan ku doodayno. hadday xaq darro tahay annaga mas'uuliyadda qaadayna, haddiina la ka xaq daran yahana marnaba qaadan mayno. waa diidnay hadalkeega. waxaan ku soo koobayaa Soomaaliya ha midowdo, Soomaaliya ha israacdo. dagaalada Galmudug baryahan ka dhacayana oo dadka walaalahaana waxaan leeyahay hal la joojiyo. kuwa caqliga leh oo cilmiga leh oo danaynaya dadkaas ayaga ha dhex galeen. ayagana waxaa leeyahay maanta Ramadaan dhiig inaad daadis